wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa waxa uu sheegay xilliga rasmiga ah ee la qaadi doono imtixaanaadka kala duwan ee dalka gaar ahaan kuwa dugsiga dhexe iyo waliba kuwa sare. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in kadib markii wadatashi kala duwan ay la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada in isku raaceen in 11 bishan la qaado imtixaanka dugsiga dhexe halka dugsiga sare la qaado 12 bishan. waxaa sidoo kale la kordhiyay dhammaan xarumaha kala duwan imtixaanka lagu galayo si looga hortago cudurka coronavirus-ka. waxaa sidoo kale 15 bisha Agoosto dib loo furi doono iskuulada halka jaamacadaha la furi doono 5 bisha September sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk Soomaaliya oo ku saxiixnaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya mudane Cabdulaahi Goodax Barre. horaantii sanadkan markii uu dilaa cudurka coronavirus-ka ayaa waxaa gebi ahaanba la xiray goobaha waxbarashada sida iskuulada iyo jaamacadaha iyadoo war ka soo baxay wasaaradda lagu sheegay in gebi ahaanba ay xiran yihiin ilaa amar dambe iyadoo hadda u muuqato in dib loo furayo dhammaan goobaha waxbarashada walow imtixaanaadka xilligii la qaadi jiray ee dib uga dhaceena. Cabdi Xasan Guule, Shabeelle TV.